موسكو ayaa wajahaysa guddoomin sii kordhaysa xilli madaxweyne Vladimir Putin uu sameeyay waxastaan oo ku aadan inuu joojiyo duulaanka Ukraine halkaas oo dagaal culus ay duqeymaha Ruushka ay dileen 10 qof abuureen barakac hoogan duulaanka Ruushka oo bilowday toddobaadkii tagay ayaa laga helin guushii degdeg ahayd ee uu Putin filayay hogaamiyaha Ruushka ayaa sidoo kale wajahaya guddoomin diblomaasiyadeed oo ka dhalatay in uu bilaabay weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado dal Yurub ka tirsan tan iyo dagaalkii dunida ee labaad iyadoo saameynta cunaqabataynta reer galbeedka ay horseedeen burbur boqolkiiba 30 oo isniintii ku yimid lacagta rebel ee Ruushka wadahadallo xabad joojin oo ka dhacay isniintii ayaa ku guul daraystay in horumar laga sameeyo waxaana wada xaajoojyadaasi aysan sheegin goorta ay dhici doonaan wareegga cusub ee wadahadallada Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa xayiraado ku soo rogay bangiga dhexe ee Ruushka ganacsiyada ugu waaweyn dalkaas maalqabeennada taajiray ka ganacsiga shidaalka iyo saraakiil oo ku jira Putin waxayna qaar ka mid ah bangiyada Ruushka ka mamnuuceen adeegsiga nidaamka SWIFT ee isku xira bangiyada caalamka Turkiga ayaa ka mid ah xulafada NATO ayaa dabarjab kale gaarsiiyay Moscow isniintii iyadoo uu ka digayo dalalka dagaalamay in aysan maraakiibtooda soo marin marabiyoodka Badmos iyo Darmles ee kala qaybiya badda madow iyo badda Mediterranean-ka taasi oo guddoominaysa maraakiibta dalalka Ruushka Canada ayaa sidoo kale sheegtay inay mamnuucayso in shidaalka ceyrinka laga soo dhoofiyo Ruushka taasi oo Moscow ka xirtay suuqa ganacsiga shidaalka Canada senator ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in maamulka Biden ay tahay in uu adeegsado qaybta ganacsiga tamarta Ruushka oo xayiraado saaro shidaalka iyo gaaska oo labada il ee dhaqaale ugu sareeya Ruushka uma adeegsanayno qaybta tamarta hub dagaal ayuu yiri senatorkan oo wariyaasha kula hadlay waxa uu guuldareysanay inuu Putin xulufo halka ugu dhaawac daran ayuu yiri Washington waxay meesha ka saartay inay ciidamo u dirayso Ukraine si ay ula dagaalamaan Ruushka iyadoo oo ka cabsi qabta in dagaal uu ka dhex qarxo labada dal ee ugu quwada weyn caalamka hase yeeshee dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda ayaa tabadelkeeda waxay Kiev ka ballan qaadeen taageero military iyadoo oo madaxweynaha Ukraine uu ka digay in caasimadda ay ku jirto halis joogto ah Kiev waa bartilmaameedka koobaad ee cadawga ayuu yiri madaxweynaha Ukraine mar oo muuqaal soo geliyay xilli dambe maalintii Isniinta oo ma ogolaan doona in ay jabiyaan difaaca caasimadda waxayna noo soo direen jaajuusiin ayuu yiri waan soo qaban doona ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine in ka badan 500 oo qof oo kun ayaa ka qaxay Ukraine tan iyo markii uu dagaal ka bilowday sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay taasi oo